shirkii golaha wada tashiga qaran ee ra'iisul wasaare Roble iyo madax goboleedyada ee la filayay in uu biri ka furmo magaalada Muqdisho ayaa dib u dhacay wuxuuna wajahayaa shaki badan oo ku aadan inuu qabsoomi doono shirka ayaa dib loogu dhigay codsi ka yimid madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani oo sheegay inuu doonayo in marka hore uu dhameeyo xiisada dagaal ee ka taagan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxa hadda Puntland ku sugan madaxdii hore ee maamulkaasi iyo xubno hore xilal kala duwan uga soo qabtay dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo xal u raadinaya xiisada wuxuuna Dani codsaday in la siiyo muddo 7 ah hase yeeshee xitaa haddii Dani uu ka soo dhamaado arrinta Boosaaso waxa shaki ku jira in uu shirkan dhici doono kadib markii madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna shir isugu yeeray madax goboleedyada dalka xog aan helnay ayaa waxa ay sheegaysaa in madaxweyne goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed Axmed Qoorqoor iyo sidoo kale Cabdicasiis Laftigareen laga yaabo inay qaadacaan shirka uu Roble ku baaqay ka hor shirka uu Farmaajo iclaamiyo Qoorqoor iyo Laftigareen ayaa ku hanjabayay inaysan ka qayb gali doonin shirka haddii aan la soo celin gudoomiyayaashii gudiyada doorashada ee la eriyay gudoomiyihii gudiga doorashada heer federaal Maxamed Xasan Ciro ayaa waxa shalay xilkii ka qaaday xubnaha kale ee gudiga halka gudoomiyihii gudiga xalinta khilaafaadka Xuseen Maxamed Maxamuud iyo 6 xubnood oo kale uu toddobaad ka hor eriyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble labada gudoomiye ayaana ku xirnaa Villa Soomaaliya si kastaba shirka uu ku baaqay Farmaajo ayaa abuuray xaalad siyaasadeed oo cusub waxayna u badan tahay in ay ka sii darto ka hor inta aan la isugu imaanin shirka dibka u dhacay ee uu Roble ku baaqay sida aan ogaanay Farmaajo iyo Mursal ayaa qorsheynaya in xilka laga qaado ra'iisul wasaare Roble waxaana suurtagal ah in taasi ay ku dhacdo maalmo gudahood dhinaca kale wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya Xildhibaan Cabdiraxmaan Odawaa ayaa shalay u muuqday inuu ishilmaamay markii uu u hambaliyay taliyaha ciidamada booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole oo uu Farmaajo u dalacsiyay darajada generaal Odawaa ayaa qoraal uu soo dhigay Facebook ku yiri hambalyo sareeyo guuto General Farxaan Maxamuud Aadan hase yeeshee Odawaa ayaa Farxaan Qaroole ugu hambaliyay darajo sharci darro ah marka la eego waxa uu Odawaa aaminsan yahay oo ah in Farmaajo uusan darajo bixin karin ama qaadi karin wixii ka dambeeyay 8 Febraayo markii uu Farmaajo darajooyinka ciidan ka xayuubiyay General Saadiq John 13 Abriil ayuu Odawaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku yiri hay ku nuugtaa maxayse ka nuugtaa ayaan maqli jiray Farmaajo wax xil ah dalkan uma haayo sharci darro ayuu ku joogaa darajo uu bixiyay 8 Febraayo kadib iyo mid uu qaaday midna sharci ma ahan waxa ay ku biirayaan liiska xadgudubada uu geysanayo oo u qormaya General Saadiq Umar Xasan John qulubta dadka Soomaaliyeed ayuu generaal iyo ka badanba ku yahay haddaba Odawaa ma wuxuu hadda qirsan yahay sharciyada Farmaajo mise waxa uu jira laba Farmaajo oo kala ah kii darajooyinka ka xayuubay Saadiq iyo midka darajooyinka siiya Farxaan Qaroole laba qalbiyeynta iyo mabda' la'aanta Odawaa ayaa waxa si xoogan u cambaariyay shacabka ku xiran bartiisa Facebook iyo baraha kale ee bulshada waxay u egtahay in Odawaa ay hambaliyada Farxaan Qaroole oo ay isku reer yihiin ay kala weynaatay inuu ka tago wixii uu ka aaminsanaa mabda' ahaan muddo bilooyin ah ficilada labadan shakhsi ayaa tusaale u ah in Soomaalida ay ku yar yihiin siyaasiyiin mabda' iyo qiyam leh oo dhammaantood ay mucaaradnimadooda iyo muxaafidnimadooda ay saldhig u yihiin danta gaarka ah ee shakhsi koox ama qoys